halkan taagan saraakiisha sarsare askartii iyo alifleyda saraakiil xigeenka dhammaan waa salaamaya salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. xafladdan yartaa waxaan u dhignay koox aan u tababarnay salaan sharaf macnaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya dib u dhismayaa dibdhiski marka la dhisay waa in waxyaabihii ashyaadii ciidamada arkaantu ahaa ciidanku arkaanu leh rugniyo leh oo ku dhismo sideedaba tabta ciidanka la baraa labana way u kala baxdaa taatikada dagaalka oo habka sistemaha habka dagaalka loo fuliyo iyo
taabta kala gaardiga waxa tabta gaardiga waxa la yiraahdo oo ah hanaanka ciidanku u dhamaashado oo isku raaco markay xafladaha qabaan oo kale markay socdaan oo kale markii mataqaana salaan sharafyada oo kale waxyaabahaas mataqaana askarta ciidanka waa muhiim u tahay waa nooc gooniya oo mataqaana la baro marka si ciidanka dib u dhiskiisa loo soo celiyo de waxa xariyuhu munaasabad u gooniye lahaayeen sida inta xarada markuu subax taliyaha soo gala oo salaan sharaf qaato marka calanka la dejina in salaan sharafka qaranka lagu dejiyo markii mataqaana oo saraakiil sarsare ay dhimato mataqaana in salaan sharafkii la sameeyo way jiraan hadda de kulay madaxtooyo waa guutada 77 iyo taliska xooga way ka jiraan laakiin aan qaybihii iyo guutooyinkii ururada u sii daadajino si mataqaana systemkii ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed dhismihiisa loo kaamilo qorshaha aan sameeyna qaybtan waxa ka dhigay kooxdana laga diyaariyay waa kooxdii aan ugu talagalay salaan sharafta qaybta madax hoggaanka tababarka nala joogo qaybta aan ugu talagalay waa salaan sharafta inay waxyaabahaas ka qabato qaybta soo markuu taliyaha soo galo kale marka calanka la dejinayo kale iyo waxyaabaha kale looga markay madaxdu imaanayo kale mataqaana taliyaha xoog taliyaha dhulka ay imaanayeen in mataqaana loo salaan sharafta islaantii la qabto ayaan hadda kooxdan u tababarnay tababarkan ma joojin doona hadii rabbi ma sii wadi doona waxa waaye marba waxaan rabnaa ciidanku dhan inuu ku tababarto oo inta karto oo marba koox la tababaro de macallimiinta laylin waa macallimiinta xoogga dalka Soomaaliyeed mahad gooniyan u celinaya tababarkan wuxuu socday muddo 2 bilood ma aduu 2 bilood xoogiisa socday lixdagaas maalmood ayay hadda layligaasi ay ku qaateen u soo dhabar adeeyeen tababarku kaliya wuxuu isugu jiray jirdhisu ka bilaabanay kadib mataqaana salaamiya ku xigay gaardiga ku xigay waad aragtaan waa koox israacday waxyaabo kale oo si dhiman kulay oo salaantii salaan sharafta markii saraakiishu sharci dhimato meedadka kale tii mataqaana waxyaabo kale dhiman waa la sii wadi doonaa lafteeda waa la sii dhameystiri doonaa hadii rabbi idmo waxaan rabnaa marka waa qayb kamid ah dib u dhiska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed qayb kamid ah waaye ku soo dhawaada جنرال نقول يا قانص وكسر التلس جود مدح وجان كم تقانا توبرك واسنا مرتين نوعه هل كان واقعي طلبي طبعا كأفريل ما كان قبل الغلبي هيت كسر دوارة نوحي كلمات أكثر كتيرنا نوضحها مدح أمنية جنرال قانصو تلاقي قريب طلبي طبعا كأفريل جنرال تواني تلي حجان كقريبته saraakiisha kale goobtan ku sugan macallimiinta ciidanka tababarku soo xidhmay iyo dhammaan ciidanka hadda halkan xafladda inaga soo qayb galay dhammaantiinba assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh saraakiil ciidanka iga da'weyn igana waa aragsan baa iga horeysay hadalka iga horeysay idin qiimeeyay كل أنتي مهم كهيد أتوبرك اللي قولنا لها أنا كتير لابد ما صدق قلب أمبان كدر دونا تببركو وديك عيدا كوي وديك عيدا كوي وح عيدا كو أشقيا دو سركالي دو أسكريا وحو كشقيا وحو كدغالما وحو كهوغلا وحو واجبات كيس كوغتا hadba tababarkiisa inta uu yahay haday tahay mid aqooneed iyo haday tahay mid hawlgal iyo haday tahay mid walba gaardigu haday tahay salaan sharaf iyo haday tahay noocyada kale gaardigaaba waa aas-aaska waana bilowga hawl kasta oo la qabanayo oo ciidan wax kasta bisinkan ku bilownaa bisinka ciidanku waa gaardiga weey hadii la soo faylayo hadii la kala tagayo hadii hawl la bilaabayo hadii hawl la soo xirayo hadii madaxi ku soo gasho hadii xaflad la qabanayo hadii la dhinto nin ciidan ay dhinto intaba hawlaha kala duwan waxa lagu qabtaa waxa weeye ee bilow ah wax walba ee bilowga ah aasaaskana waa gaardiga salaan sharafeed baa jirta salaanta caadiga ah waxa jirta ciidanku say u kala sareeyaan isku salaamaan faylashi
hawlgal haddii la sameynayo imika oo hayaan la gelayo nidaamka loo sameynayo maxay ahaanay laymankii nidaamka loo soconayo sida loo istaagayo wax walba waxa weeyaan waxa ugu horeeya waa gaardiga ciidamadu waxay lahaan jireen laba nooc oo tababar ah labada nooc ee tababaradu waxa weeye qaar waa qaar dugsiyada iyo akademiyadaha lagu fuliyo tababarna waa tababar joogto ah oo laba xilli sanadkii ah oo colalku ay fuliyaan tababarku waxa uu leeyahay ama tacliintu ama aqoontu ama waxbarashadu barbilow bay leedahay laakiin bardhamaad ma laha ma dhammaato markay ugu yar tahay waxaad soo dhigatay oo lagugu celiyo ama aad ku celiso oo aad maxay ahaanay practice garayso oo lagugu layliyo si aad maxay wixii ula qabsato oo macaan lagu noqoto marka dambe waxa ugu yar waa waxa haddii kalena maalin walba waxba ku soo kordhaya sidii shalay wuxuu qabanaysaa si ka wanaagsan bad bari u qabanaysaa haddaan tababar cusub oo kale la keenin in lagu celceliyo maxay ahaanay waxaad hore u taqaanay oo la barskareeyo oo la weereeyo oo la joogteeyo waxay noqonaysaa in wixii la hayo sidii shalay loo qabanay si ka wanaagsan maanta loo qabto aad iyo aad buu ugu mahadsan yahay taliyaha qaybta iyo dhammaan saraakiisha kale ee howlwadeennada ka ah qaybta 12 Abriil sanadka bilowgiisii dhammaan colalka iyo ciidamada kala duwan ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed hogaanka tababarku waxa uu diyaariyay tababarkii sanadeedkii oo labadiisii xilli ka kooban waxaan taasi aan ammaan gaar ah ugu soo jeedinayaa taliyaha iyo saraakiisha qaybta 12 Abriil iyagu la yimiday tababarkan oo dheeraad ah la yimiday waana wax loo baahnaa bay hayd ciidamada adduunyadu inta badan militarigu waa isku mid laakiin waxyaabaha ay ku kala duwan yihiin oo ah baadisooca oo ah identity-ga oo ah wadan kasta waxa ka mid ah gaardiga iyo salaamaha ay ciidamadu leeyihiin kala duwan ayaa maxaydaanay u ah waa dhaqankeennii ciidanka waa tacliinteennii waa hidaheennii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaan ammaan u soo jeedinayaa iyagana oo ku bogaadinayaa macallimiinta soo saartay ciidankan waxaan kula dardaarmayaa in ay dhaxalkaasi reebaan oo aanay la dhiman saraakiisha waa arag ah ee ka hadhay ciidankii xoogga dalka Soomaaliyeed ee hore wax ku soo bartay dhismihii dawladeed ee dhameystirnaa in ay dhaqankii iyo hidihii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed u reebaan jiilasha cusub ciidankan waxaan kula dardaarmayaa in aad daba goosataan oo rag waa daba wado daba maxay dabada ka wada hadii geeridaysa gabadhan deynayna aad kala hadaan waxa hayaan idinku ku dadaashaan